weerarka hore oo ka dhacay fiidkii xalay ahayd ayaa waxa uu ahaa duqeyn diyaaradeed oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo uu ku jiray nin magaciisa lagu sheegay Khalid Abuukar Xasan oo madax u ahaa amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada Jilib lagu beegsaday guri uu deganaa sarkaal shabaab ee amniyaadka gobolka Banaadir iyo xarun kale oo ahayd goob lagu diyaariyo qaraxyada. saraakiisha waxa ay sheegeen in labada weerar ee degmada Jilib ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 16 qof oo isugu jiray saraakiil iyo ilaaladooda, iyadoo shabaabku saakay ay howlgal ballaaran ku qabteen dad la xiriirinayo in ay wax ka hagayeen weerarada. sidoo kale saqdi dhexe ee xalay waxa dagaal fool ah uu ku dhaxmaray degmada Bu'aale ciidamo Soomaali iyo kuwa Amerikaan oo isbahaysanaya iyo kuwa shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaalo muddo ku dhow saacado socday. weerarka Bu'aale waxa la sheegay in shabaabku laga gaarsiiyay khasaare gaaraya dhimasho ilaa iyo 11 xubnood oo shabaab ah, taasoo khasaaraha guud ee weerarka xalay ka dhigaysa dhimashada 31 xubnood oo shabaab ah.